ku bilownay waxaa maalmihii u dambeeyey baraha bulshada haystay hooyo Soomaaliyeed oo baadi goobaysa gabadheeda oo nolol iyo geeri ayna midna ku haynin muddo 2 toddobaad ah. Gabadhan oo 23 jir laguna magacaabo Ikraan Tahliil Faarax ayaa hore u soo noqotay agaasimaha xafiiska duqa magaalada Muqdisho xilligii Allah u naxariistay injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariso. Kadibna waxay u shaqaysay hay'adda nabad sugidda qaranka ee NISA. Maxamed Colaad Xasan ayaa arrinta gabadhan warbixinta nooga diyaariyay. gabadhan oo 23 sano jira oo lagu magacaabo Ikraan Tahliil Faarax ayaa horey u soo noqotay agaasimaha xafiiska duqa magaalada Muqdisho xilligii Allah u naxariistay injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariso. Kadibna waxay u shaqaynaysay hay'adda nabad sugidda qaranka ee NISA. Ikraan ayaa waxa ehelkeeda ugu wardambeysay markii ay ka baxday gurigeeda Ikraan ayaa waxa ehelkeeda ugu wardambeysay markii ay ka baxday gurigeeda 26 bishii hore sida ay ii sheegtay hooyadeed Qaali Maxamuud Guhaad oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Muqdisho. gabadhayda waa iga maqan tahay waxaan waayay 26 Juun aan waayay gabadhayda hooyo guriga iyadoo iska joogtaa la wacay waxa la yiri maxaan ku dhahayay kaale imo laptopkaada soo qaado gaariga loo soo diray gaariga markii loo soo diray gaariga gabadhii kulay daday taqaano waaye oo garanayso gabadhii sidee gaariga ku raacday gabadhii ilaa hadda ma hayno gabadhay 23 jir ahayd Ikraan Tahliil Faarax xagee tuhumaysaan gabadha inay aad markaa oo lagu laayahay wallahi dawladdan ku tuhmeynaa tuumweyn ka qabnaa gaariga qaaday kaamiraan ka helnay marka hooyo saasaa jirto wax idin la soo xiriiray oo ama aad la xiriirteen arrinteeda ku saabsan maya weli wax aan la xiriirnay ma jirto ugu baaqayaa islaamnimo haday jirto oo soomaalinimo jirto gabadhayda yartaa oo gabar yar oo wax baratay maskiina wax ay dambi ka gashan lahayn in ay gabadhayda sida ugu dhaqsaha badan ay iigu soo sii daayaan. taliyihii hore ee hay'adda nabad sugidda qaranka Cabdulaahi Maxamed Cali Sambololshe oo arrintan gabadhan si dhow ula socday ayaan wax ka weydiiyay wuxuuna ugu horeyn ka warramayaa xilliga ay gabadhan ku soo biirtay hay'adda nabad sugidda qaranka. Ikraan Tahliil Faarax waxay ku soo biirtay hay'adda markii aniga madaxda la dhigay 2017 ama 2017 April aniga ayaana soo qoray marka muddana xafiiskayga ayay attached ku hayna ka shaqaynaysay markii dambeetana department kaleeto oo human rights iyo genderka la yiraahdo ayaan u wareejiyo madax uga dhigay ayadoo meeshaas joogto oo ka shaqaysa xafiiskaas ayaan ka tagay hay'adda anigu waa gartay marka maxaad kala socotaan kiiskan hooyadeed baa hadlaysa eheladeedii baa hadlaya waa la yahay gabadha markii ugu dambeysana hay'adda nabad sugidda xarunteeda magaalada Muqdisho tagtay marka waxaad kala socotaan kiiskeeda wallahi kiiskeeda mugdi badan ayaa ku haraysan cid hadda specifically hadda cadeyn karta duruufteeda ama circumstanceeda xaaladeedu waxay tahay cid og lama arko laakiin waxa la yiri all roads lead to sheeg maxaan ku dhahaa Roma haddii aan arkaan kor ka eegay oo aan hoos ka eegay waddo qaloocan iyo waddo toosan oo kasta oo la xiriirtay tuhunka maqnaashaha gabadhan waxay ku arooraysaa hay'adda NISA waayo adduunka dembi marka uu ka dhaco dembigan oo kale waxa la dhahaa complex crime waa dembi wajiye fara badan leh oo meelo fara badan laga eegi karo haddii aysan jirin marka qof dembiga qiranaya ama lagu haayo ku cad yahay dabcan waxa abuurmaya shakiyo suspects waxa la yiraahdo meesha dembigu ka dhacay iyo qofka meesha ugu dambeysay iyo cidda ay la shaqaynaysay iyo meesha ay ku dambeyn kartay oo horta shakiga inta badan dabcan dad fara badan anigu waa wareystay oo kiiskan si qaas ayaan u jaba joogay sida muuqata hadda gabadh waxay deganeeday waa gabar waxay ahaaday maxaan ku dhahaa careful oo taxadir badan oo qiimo socda oo wacyi amni leh meel ammaan ah oo hay'adda physically iyo electronically laga ilaalin waa dhex deganeeday gabadhu marka hadda meesha dhex deganeeday oo ama ay u dhaweeday waxay ahayd hay'adda nabad sugidda dhaqdhaqaaq kasta iyo cid kastoo meesha soo gelaysa iyo cid kastoo ka soo baxaysana ama si toos ahaba loo arki karaa ama CCTV camera ayaa laga heli karaa dabcan gabadhuna waxay ahaaday howlwadeennada hay'adda ama saraakiisha hay'adda annaga marka waxaan isleenahay 3-4 qolo ayaa magaaladan dhibaato ka geysan karta ama force jira shabaab dabeeciyan shabaabkuna dadka ma afduubto wixii hadda galana ma la waayo ama raadkooda lama waaye saraakiisha hay'adda oo kale markasta waa dilaan toos u dilaan waxaa jiri kareeto aana qabiil gabadhaasna sabab hadda gabaray ahayd aana qabiil loo dilo ma jirin waxa kale waxay dhici kartaa criminals niman tuug ah ama xoolo ka rabi kara ama wax kaleeta ma jiraan xoog kale waa dawladda dabcan marka waxaa laga rabaa dawladda laga rabaa gabadhan nolol iyo geeri meel inay ku sheegto
hay-addii amniga qaranka loogu talagalo in badbaadada ummadda soomaaliyeed ka shaqayso inay hadda dabageli weyso ama warcad ka soo saari weyso maqnaashaha gabadhan waxay nolol geeri ku dambaysana haddii tuhun weyn ayaa jira ama negligence ayaa jira annagu hadda marka kama hor dhacayno oo malihin ii sheeg haddaan ognahay gabadha nolol geeri cidda hays annagaaba sheegi lahayn laakiin tuhun fara badan in kayskan hay-adda nabad sugidda ay ku lug leedahay dareen ah oo xoogan ayaa jira gabadhan awood intee leeg ayay ku lahayd hay-adda walahi gabadhan wax awooda ma lahayn laakiin dee sarkaal oo insider ah oo maybe arrimo xasaasiya iyo xog xasaasiya oo sensitive og ay noqon kartaa waxaa dhici karta in ii sheegan waxay og tahay ay dhibano u tahay maybe hadday suurtagal tahay evidences ama waxay og tahay oo ayoo la tirtiraya ayaa jira qayb ka tahay dadka qaar waxay ugu dhaheen waxay haysta registrationkii ciidamada Eritrea loo qaaday gabadhan waxaa leeyahay database-ka ama xogta ciidanka meeshaas aaday haysay qaarkood kale meelo kaleeto oo ama maxaan ku dhahaa arrimo kaleeto xasaasi oo hadeertaan dhici karto anytime in ay wuxu soo baxaan ayay markhaati ka noqon kartay waxyaabo badanaa iska dhici kara laakiin annagu ilaa hadda malaa'ig ma nihin oo ma ogin waxaasoo dhanna baaritaan ayay kasoo bixi doonaan waxaana la yiri ii sheegeen runta waa hurudaahe ma dhimato one dayna waa soo bixi doontaa haddii hadda ay soo bixin maalmaha ka mid ay runta soo bixi doontaa gabadhu ilaa hadda waa maqan tahay dawladdu haddii sifa sharci lagu haysto waa la caddayn lahaa ama xarumaha maxkamadaha hayn lahaa ama xarumaha dadka lagu xiraa lagu hayn lahaa waa la ogaan lahaa ama case active oo la yaqaana lagu haysan lahaa horta aniga shakhsiyan ilaahay ha rumeeyo in gabadhu nooshahay saasaan rajaynaynaa laakiin kuma calool fiyooba inay nooshahay in maleeshiyada ururka al-shabaab ay saraakiil ka tirsan hay-adaha ammaanka ama shaqaalaha dowladda shirqool ku dilaan iyo inay ku dhintaan qarax loogu xiro gaarigooda maaha wax ku cusub dhigaha soomaalida laakiin in la waayo raq iyo ruux waa wax dhif iyo naadir ahaa tan iyo wixii ka dambeeyey xukuumaddii milatariga ee maxamed siyaad barre taliyo xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka ee nisa cabdisalaan guuleed ayaan weydiiyey cidda ay tahay inay ka hadasho shaqsigii la waayo gaar ahaan marka shaqsigaasi uu shaqaynayo hay-ad dowladeed qofku marka uu institution ka tirsan yahay ama company ha noqoto ama mid dowladeed ha noqotee waxa weeyaan ayagaa laga rabaa marka koobaad mas-uuliyadda koowaad ayagay saaran tahay inta xogta aan haya haddaan usoo laabta gabadhan ikramo waalidkeed lama aysan joogin soomaaliyay joogtay hay-adda nabad sugidaana muddo dheeray ka shaqaynaysay institutionada dowladda gobolka banaadir oo kalena way kasoo shaqaysay hooyo iyo ehel iyo qaraabo waxa u ahay institutionada ay ka shaqaynaysaa u ahay gabar waxay ahayd aada ugu dhow madaxda dowladda kaas ahaan kuwa nabad sugidda marka waxa weya qofka haddii dhibaata gaarto haddii uu dhaawac gaaro haddii la waayo cidda koobaaday tahay inay alert dhiibaan ama ay raadiyaan waa institution qofka uu ka tirsan yahay kayskan hadda gabadhaanne waxay ahayd gabadhaan xidhan sare oo kamid ah hay-adda nabad sugidda waxay ahayd qof hay-adaha dowladda aada uga shaqaynaysay aadna looga warqabay dee xiriirka ay la lahayd dowladda marka macluumaadka laleeyahay baabuurka hataa videoga c c camerada la fiirinayo meesha laga qaaday oo aan cid kale iska soo geli karin oo ah eriya u xiran hay-adda nabad sugidda iyo dowladda meesha gaadiidka oo soo maray baabuurkan qooqanta waxaasoo dhan markii la isku daro waxaa soo baxaya waxaa cuslaanaya aada usoo xoogeysanaya shakiga laga qabi karo inay gacanta dowladda gabadhaani ku maqan tahay gabadha marka in waxyaabaha kaloo shakiga weyneynaya waxa weeyaan gabadha waxaa alert waxa qaylinaya oo meel kasta ka hadlaya waa waalidkeed waa hooyadeed waa ehelkeedii dowladdii soomaaliyana way aamusan tahay marka meeshii ay ahayd inay dowladdu noqoto qofka qayla dhaaminaya oo waalidkii hor ordaya oo idaacadihii ka hadlaya oo booliis ka hadlaya c i d da hadlayso oo nabadgelyada lafteeda warqad soo saartay ku tiraahdo qofkaasaa naga maqan oy xogtii maaragtay iyadu hor ordayso hadda waxaa muuqata marka inay ka maqan tahay picturkii sababtaas marka waxay keenaysaa shakiga ugu weyna la qabi karo in uu yahay inay dowladda hay-adda nabad sugiddu ay gabadhan gacanteeda ku maqan ama ha noolaato ama ha dhimato cabdisalaan guuleed ayaan weydiiyey waxa keeni kara in shaksi ka tirsan hay-adda nabad sugidda qaranka sida ikraan oo kale la beegsado xogta kaloo hadda soo baxaysana waxay tahay oon weli aana xaqiijin karin gabadhaan inay ikram inay gacanta ku haysay faylashii Eritrea inay gacanta ku haysay oo dhalinyarada laleeyahay Eritrea loo qaaday waa loo qaaday yes laleeyahay maan waan ogahay in loo qaaday inay gacanta ku haysay computerkeeda iyo laptopyadeedana ay ku jireen shaksiyaad yar ay ku jireen oo ka mid ahay ayada keliya ma dhihi karo taas weli ma cadday karno hadday marka taas run tahay dadkii og baa og oo i dhegaysanaya maanta oo gabadhaas inay lug ku lahayd
recruitmentiga dabcan agency la isticmaala ama qof shaqaalaha ahayd ayadu go-aamada ma lahayn. hadday dadkii faylashaas haya kamid ahayd dan waxaa soo baxaysa sabab aada u weyn oo ah in dawladdu ay doonayso inay raadkaas baabi'iso qof kastoo ku lug lahayna uu ka baxo hawada. si aan wax uga weydiino arrintan waxaan xiriir la sameynay qaar ka mid ah saraakiisha wasaaradda warfaafinta dowladda Soomaaliya, kuwa maamulka gobolka Banaadir iyo booliska. afyeenka ciidamada booliska Soomaaliyeed Sadiiq Aadan Cali Doodishe oo aan la xiriiray ayaa ii sheegay inaysan jirin cabasho rasmi ah oo la xiriirta arrinta gabadhan oo ka soo gaartay ehelkeeda, balse ay maqleen arrinta la xiriirta maqnaanshaheeda. wuxuuna ku gaabsaday in xog intaa ka badan uusan markaa hayn.